nabiguna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ugu badan ee ilaahay ku baryayay xadiidka tirmidi ibn maaja warinayaan sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamay waxa badnaa baa la yidhahdaa nabigu inuu ku ducaysto yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik ilaaha aadanaha qalbigiisa gegediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada saxaabi baa weydiiye wuxuu yidhi yaa nabiy allahi aamanaa bik wabima ji'ta bih fahal takhaafu calayna waaba ku rumaynay wixii aad la timina waa rumaynay miyaad noo cabsanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna usbucayn aw bayna isbicayn aw bayna isbacayn taba waa la akhriyaaye ina alquluub qalbiyada bini aadamku waxay ku jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mid ah yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa siduu doona u gagadiya maadaama gagadoonku uu suurtagal yahay nebi maxamed wuxuu baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in rabbi qumanida iyo toosnida iyo sugnaanta uu ku hayo waxaan rabnaa markaa dadaal badan inaynu ku bixinno waddada dhexe naf iyo shahawaadkeedii baa jira shayaaiin alinsi waljinni baa jira mahma adigu aad tala gaadho caqabadaa ka hortaagan cid kugu riixaysa jidka inaad ka weecato tiro badan baa jira oo ay ka mid tahay shahawaadka lagugu abuuray lagugu itixaamay shahawaatu nafs xoola jacayl baa kugu jira xidhiirka rag iyo dumarka dhex maraa qof walba ku jira baahiyo badan baad qabtaa waxaasoo dhammi waa wax kugu riixaya sidii waxaa loo heli lahaa inaad u xidhxidhato mar labaad waxaa jira shayaaiin aljinni walins dadka badh shaydaama ah oo ilaahay ku tilmaamay inay shayaadiin yihiin dee wixii waddada qaldan dadka ugu yeedhoo dhan baa shaydaan ah ama jin ha ahaado ama insi ha ahaadee marka shaydaannimadu waa dhaqan aadanuhuna leeyahay jinkuna leeyahay jinka inta dadka xumaha ugu yeedha waa shaydaamo aadanaha inta xumaha ugu yeedhana waa shaydaamo haddii bini aadamku uu adkaysan kari waayo xaqa weydaarto oo kuwa aad aqbasho isagoo ilaahay nabigiisii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu leeyahy wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftarii calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka ضicfa alxayaati waضicfa almamaat ثuma laa tajidu laka calayna nasiira nebi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa ummadda horseedkeedii iyo hogaamiyaheedii waa ummaddu cidday ku dayanaysay laakiin ilaahay wuxuu leeyahy waxay u dhowaadeen inay kaa fitneeyaan wixii aanu kuu waxyoonnay wax ka mid a si aad waxaan ahayn noogu been abuuratid baa ilaahay leeyay taftariya calayna hayra waida latakhaduuka khaliila haddaad tooda aqbali lahaydna waa ku soo dhowayn lahaayeen baa ilaahay leeyay saaxiib bay kaa dhigan lahayd aadamaha barh baa jira kugu dirqinayo kugu cadaadinaya xagga xumaha inaad u weecato ama bulshadu ha noqdo dhaqamiyo xeerar ay leedoo diinta khilaafsan ama ha noqoto dhan hunguriyo ay kaa soo maraan ama wuxuu doonaba ha noqdee dadka barh baa jira kugu cadaadinaya inaad u kacdo xagga ambadka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markaa nebigiisii xataa inay isku dayayeen calayhi salaatu wasalaam inay dhankaa u kaxeeyaan ilaahayna wuxuu sheegay haddaad ka aqbasho latakhaduuka khaliila saaxiib bay kaa soo dhiganayaan markaa wararka hebel waa nin ragaa lagu leeyahy waa markaad jarka ka boodo waa lagu soo dhowaynayaa ilaahay baa markaa qur-aanka wuxuu leeyay walowlaa an habatnaak haddaanan annagu ku sugi lahayn laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed sidaa loo gelayo maxaad adigu u malaynaysaa
qof feejigoo soo jeeda oo waxna garanaya saxiix qaladku kala cadyiin diinka iyo diin la'aantu kala cadyiin soona jeedo mowqif qaadan karaya ayuunbaa badbaadaya ilaahay wuxuu leeyahay nabigiisa maxamed haddaad weecan lahayd idan la adaqnaka ضعف الحياة ولا يسوء إضافية ضعف الحياة ضعفك أصليا ولا بلاب هل كان لكن واحد لو قلت شيء بيلين شدة الحياة nolosha adeegeedaan ku dhadhasiin lahayn kadeedkeedaad wax ka arki lahayd gefkaaga abaalmarkiisaad arki lahayd baa ilaahay leeyahay dad wadada qaldan cararto wada qaldan waxa ka yimaadaan waa maxay waa waxaan la mahadin marka ilaahay nabigiisa wuxuu ku leeyahay haddaad jidka qaldan mari lahayd abaalmarkeedo ka kan baad arki lahayd وضعف الممات أي قبل الموت bay culimadu iyadana ku tilmaamaan taa macnaheedu waxa weeyaan dhibaatadu aadamahay ka timaadaa wuxuu sameeyo haddaad marka xaqa weydaarataan mashaakilkeedaa la kulmaysaa cid kale kuu gargaartana haddii ilaahay imtixaanka kula rabo ma jirtaba alla tilmaamaya